fanaanada caanka ah ee Farxiya Kabayare ayaa soo gaartay caasimadda dalka hooyo ee magaalada Muqdisho. Fanaanada oo indhawaalaha ka maqnay dalka ayaa markay soo gaartay la hadasha saxaafadda iyadoona isxaqaanka qaran oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku baaqay ka qayb qaadatay. Farxiya ayaana sanadooyin ka hor caasimadda soo gaartay iyadoo doonaysay in ay show ku qabato umana suuragelin hasaatee sanadkan nagu soo foolay 2019 ayay doonaysaa in ay taageerayaasheeda kala qayb qaadato masrax fureed furan si ay habeenkaasi taageerayaasheeda u damaashaadaan. waxaan kaga mahadcelinayaa number 1 soo dhaweyntan quruxda badan jacaylkan sharaftan iyo cisigan oo ku faraxsanahay meeshan ku dhashay inaan mar labaad ku soo laabto 24 ay ugu dambeysay xamar aragtidiina abshir waxaan leeyahay shaqo wanaagsan xamar aadaan ugu xiiso qabaa shacabka aadaan ugu xiiso qabaa dawladda aadaan ugu xiiso qabaa absolutely maanta meeshan taaganahay waa tiyaatarkii oo aan weligay arag oo ku faraxsanahay halkan imaado ina maanta dalkan ii taagneedina waa kaga mahadcelinayaa.